السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel walba aad nagala socotaan halkan waa wararka TV. qodobadayna wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo kulan la yeeshay hoggaanka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, madaxweynihii hore dalka Nigeria oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. kuna soo dhawaada warkaas iyo warar kale oo la mid ah insha Allah. ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay hoggaanka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. kulanka ayuu ra'iisul wasaaraha wuxuu warbixin ku saabsan qaabka ay hay'adda u shaqeyso ka dhageystay madaxda hay'adda oo dhawaan yeelatay mas'uul cusub. ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay xoojinta iyo dardargelinta howlaha iyo adeegyada hay'addu siiso shacabka Soomaaliyeed. ergeyga gaarka midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo ayaa ka digay in wada hadal aan nabad lagu dhalin karin Itoobiya inta uu dagaalku sii xoogeysanayo. madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay wada hadal suurtagal ah, balse loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada ay joojiyaan dagaalka oo la helo fursad abuuri karta wada hadal. Obasanjo ayaa ka dhoofay Itoobiya Khamiistii kadib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo hoggaanka jabhadda Tigreega TPLF, halka ergeyga gaar ee Mareykanka Jeffrey Maltam uu sidoo kale booqasho ku tagay dalka toddobaadkii hore.